Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada barashada xisaabta oo taxan inoo ahayd. Daawadayaal, magacaygu waa Shiine Gestir. Caawa waxaan ka hadlaynaa runtii xisaab aad iyo aad muhiim u ah oo ka mid ah geometriga. Su-aasha halkan noogu qoran waxay leedahay find the area and the circumference of a circle. Raadi beedka iyo wareega sirkalada waxa la dhaho goobada. Waa cashir aad iyo aad muhiim u ah. Inta aynan su-aashaas ka jawaabin oon tusaalayaasheena aan u gudagelin, waxaan rabaa inaan isla fahanno ereyada aan halkan ku macneeyey oo runtii ah kuwo muhiim ah inaad fahansan tahay, luqadaada ku fahansan tahay, meesha istaagaan iyo waxay yihiinba aad fahansan tahay. Okay, area circumference waa maxay? Area circumference waxaa English lagu yiraahdaa oo kale perimeter. Waxaa luqadeena Soomaaliya lagu yiraahdaa wareeg. Waa wareeg. Diameterna waa dhexroor. Radiusna waa gacan. Areana waa beed. Marka hadda halka soo fiiri, circle-ka halkan noogu sawiran ama goobada halkan noogu sawiran, marka aad goobada sameynaysid waxaad wareejinaysaa wareeg saas u wareegaya. Wareegaas ayaa waxaa la yiraahdaa circumference English. Circle-ka waxaa dhex mara waxa la dhaho diameter. Diameter-kaas dhex mara ayaa waxaa la yiraahdaa af Soomaali dhexroor. Diameter-kan marka uu gaaban yahay ee laba loo qaybiyo waxaa la yiraahdaa radius. Sida halkan aad ka aragtaan, circle-kan aad ka aragtaan, gacanka gaaban waxaa la yiraahdaa radius. Af Soomaalina waxaa lagu yiraahdaa gacan. Haddaba waxaan raadinaynaa area-ga, beedka iyo circumference-ga iyo wareega circle-ka. Sidee loo raadiyaa? Waxaa loo raadiyaa sida halkan ka muuqata. Haddii aan raacno qaacidadan oo aan barano qaacidadan oo aan xifdino qaacidadan oo aan meel wanaagsan ku qorano si aan mar walba u xasuusano, waxaan ku guuleysanaynaa inaan mar walba aan soo heli karno beedka iyo wareega circle walba oo naloo diro. Haddaba aan qaacidadan isla fiirino. Area-ga circle-ka waxaan soo gaabiyay halkaas sida yartaada arkaysaan waa circle. Area of circle, beedka circle-ka ama beedka goobada waxaa lagu helaa pi oo lagu dhuftay radius square. Waxaa muhiim ah marka hore inaad fahantid waa maxay pi. Pi waa erey Greek ah oo u taagan tirada la dhaho pi. Waa erey Greek ah waxayna u taagan tahay 3.14 oo ka mudan inaad runtii aad xifdidid 3.14. Pi waxay la mid tahay 3.14. waa laga maarmaan inaad xifdi. Okay, taas waan isla fahnay. Circumference oo ah wareega goobada. Circumference of circle, wareega goobada waxaa lagu helaa ama ay la mid tahay pi oo u taagan 3.14 oo lagu dhuftay diameter dhexroorka. Dhexroorka waxa weeyaan dhexroorka waa diameter-ka. Kan ayaa la dhahaa diameter. Af Soomaali waxaa lagu yiraahdaa dhexroor. Marka circumference-ga aad soo helaysid, wareega goobada markaad soo helaysid, waxaa la isku dhufanayaa pi oo u taagan 3.14 iyo diameter-ka. Diameter-ka marka lagu siiyo waxaa lagu siin karaa 5 diameter, waxaa lagu siin karaa diameter 3 centimeter ah, waxaa lagu siin karaa diameter 10 centimeter ah. Diameter-ka lagu siiyo ayaad ku dhufanaysaa pi, kadib waxaad soo helaysaa circumference-ga wareega circle-ka goobada. Diameter-ka dhexroorka waxaa lagu helaa radius gacanka oo lagu dhuftay 2. taasna waa muhiim inaad xasuusan tahay. Radius gacanka waxaa lagu helaa diameter dhexroorka oo loo qaybiyo 2.
haddii dhexroorka laba loo qaybiyo waxaad helaysaa radius gacanka gaaban ayaad helaysaa. intaasi waa formulka ugu muhiimsan ee aan tusaalooyinkeena soo socda aan ku shaqeynayno. waana muhiim meel ku qoro, xifdi, ilmahaaga xifdisii. waa xisaab aan laga maarmin. okay, aan tusaalaheena koowaad u guda galno. tusaalaheena koowaad waxaana la yiri find the circumference, raadi wareega. waayahay iyo area of the circle. circlekan halka noogu qoran ayaa waxaana nagu yiri waxaa soo heshaan beedkiisa iyo wareegiisa. waa hagaag, waa loo su'aalood marka. waxaan halkan ku baranaynaa sida loo helo wareega circleka, wareega goobada iyo areaga circleka iyo beedka circleka. marka koowaad waxaan ka shaqeynaynaa circumferencega, wareega goobada. c baan usoo gaabinaynaa circumference. circumference waxaa lagu helaa pi oo lagu dhiftay diameter. halkan waa inaad aad ugu fiirsataa. circumference oo c usoo gaabinay waxaa lagu helaa pi. pi maxay la mid tahay? pi waxaan ognahay inay la mid tahay 3.14. waa inaad mar walba aad xasuusan tahay. marka pi aragtid waa inay kugu soo dhacdaa 3.14. waxaad dhahaysaa pi oo u taagan 3.14 oo lagu dhiftay diameter. marka circlekan diameterkiisa ma ogid, laakiin waxaad og tahay radiuskiisa. markaasaa waxaad soo xasuusanaysaa qaacidadii dhahaysay diameterka wuxuu la mid yahay ama lagu helaa radiuska oo lagu dhiftay 2. qaacidadiini maxay ahayd? dib aan u xasuusanay. waa kana diameterka waxaa lagu helaa radius oo lagu dhiftay 2. marka hadda waa laga maarmaan inaan soo helno diameter, waayo qaacidadan ayaa waxay leedahay circumferencegana loo diray, wareegana loo diray waxaa lagu helaa pi lagu dhiftay diameter. diameter haddaanan soo helin xisaabtan kama shaqeyn karno. marka waa inaan qaacidadii diameterka aan soo xasuusanaa. diameter waxaa lagu helaa radius lagu dhiftay 2. haddaba diameter waxayna la mid tahay radiuskan haysano waa mise waa 4 centimeter. 4 lagu dhiftay 2. marka diameter waxay la mid tahay 4 loogu dhufo waa 8. hadda diameterka waan soo helnay. marka waan ka shaqeyn karnaa oo waan soo heli karnaa circumference. waxa weeyaan diameterku waa 8. marka circumference waxay la mid tahay 3.14 lagu dhiftay 8. calculatorkan aadno 3.14 oo lagu dhiftay 8 waxay la mid tahay 25.12. 25.12 centimeter. wareega goobadan nala siiyey 4 centimeter oo gacan ah waxay la mid tahay 25.12 centimeter. halkaas waxaan ku soo helnay wareegii goobadan. haddana waxaan nalooga fadhiyaa inaan soo helno areadii goobadan, beedkii goobada. waa hagaag, qaacidadii areada maxay ahayd? areada goobada waxaa lagu helaa pi lagu dhiftay radius square. marka area waxay la mid tahay pi. maxaan la mid tahay oon ognahay inay tahay pi? waxaan ognahay inay tahay 3.14 oo lagu dhiftay baan dhahaynaa radius square. radiuska aan haysano ayaad fiirinaysaa. gacanka aan haysano waa gacankii gaabnaa, waa 4 centimeter. marka waa radius. waxaad dhihi marka 4 ayaan haysanaa. waxaa laga maarmaan inaan raacno qaacidada. waxay leedahay marka radiusku waa inuu yahay 2 jibaaran. waa inaa marka 2 jibaarta ood ka dhigtaa 4 2 jibaaran. marka area of circle waxay la mid tahay 3.14 oo lagu dhiftay 4 2 jibaaran. 4 2 jibaaran waxaan ognahay inay tahay 4 lagu dhiftay 4
oo la mid ah 16 marka waxaan dhahaynaa 4 laba jibaaran waa 16 waan isku dhufanaa markaas 3.14 lagu dhuftay 16 waa 16 yaa calculator-ka soo qaadanaa 3.14 oo lagu dhuftay 16 waxay la mid tahay 50.24 50.24 centimeter square ha iloobin square-ka markaad area soo helaysa halkaas ayaan waxaan kaga gudbaynaa tusaalaheeni koobaad waxaan u gudbaynaa tusaalaheena labaad siduu fahamkeena u sii balaadho tusaalaheena labaadna waxaan yiri sidoo kale find the circumference and the area of a circle raadi wareega iyo beedka circle-kan lana siiyey circle-kan lana siiyey waxa weeyaan wuxuu haystaa diameter dhexroor 10 centimeter ah waaye waxaan dhahaynaa marka hore waxaan xisaabinaa circumference oo c inoogu taagan waxay la mid tahay pi lagu dhuftay diameter marka circumference waxay la mid tahay pi waa imisa pi waxaan ognahay in la mid tahay 3.14 oo lagu dhuftay waan dhahaynaa diameter-kan waana la siiyey waa iska caddahay tan diameter-ku waa 10 centimeter markaasaan dhahaynaa 10 centimeter marka circumference-gu wareega goobadan wuxuu la mid yahay 3.14 lagu dhuftay 10 waxa weeyaan 3.4 centimeter 31.4 centimeter halka ayaan kaga gudubnay circumference wareegi haddana waxaan u gudbaynaa inaan soo helno area of circle waxaa lagu helaa pi oo lagu dhuftay radius square halkana waa inaad aad ugu fiirsato circle-kana la siiyey waxaan circle-kana loo diray ee la yiraahdo soo hela area-giisa waxaana la siiyey 10 centimeter oo diameter ah qaacidadeenna waxaa lagu helayaa area-ga pi lagu dhuftay radius square marka waa inaad radius-ka aad soo heshid mar walba hay waxaan dhahaynaa marka hore area of circle waxay la mid tahay pi waa imisa pi waxaan ognahay tahay 3.14 oo lagu dhuftay radius square saan ku soo helaynaa waxaan soo xasuusanaynaa qaacidadeennii dhahaysay halkan radius waxaa lagu helaa diameter-ka oo loo qaybiyey 2 diameter-ka waxaana la siiyey 10 circle-kan waa 10 marka waxaan dhahaynaa radius wuxuu la mid yahay diameter-ka oo loo qaybiyey 2 marka radius wuxuu la mid yahay 10 waayo diameter-ka aan haysano waa 10 centimeter waan garanay oo loo qaybiyey 2 marka radius wuxuu la mid yahay 5 radius waan soo helnay marka radius waa half-ka halkaas ilaa halkaas waa radius waa gacanka marka gacankan wuxuu la mid yahay 5 inaad ka soo heshid waa laga marmaan marka waxaan dhahaynaa waa 5 laba jibaaran radius-ku waa inuu laba jibaarnaado waa amarka qaacidada haddii aad amarkeeda diido xisaabtaadana way ku diidaysaa wayna kaa khaldamaysaa pi waxay la mid tahay area of circle waxay la mid tahay pi lagu dhuftay radius square marka pi oo u taagan 3.14 oo lagu dhuftay radius square radius-ka waxaan soo helnay 5 marka 5 waa inay noqoto qasab square waayo 5 waa radius-ki 5 square haye aan usii wadno area of circle waxay la mid tahay 3.14 lagu dhuftay 5 laba jibaaran 5 laba jibaaran waxaan ognahay in la mid tahay 5 lagu dhuftay 5 oo la mid ah 25 waxaan dhahaynaa marka 25 3.14 lagu dhuftay 25
3.14 oo lagu dhuftay 25 waxay la mid tahay 78.5. area of circle waxay la mid tahay 78.5 centimeter square. halkan waxaan ku saarnay tusaaleheenii labaad iyo area-gii labadii xisaabna waan ka shaqeynay. bal aan u gudubno tusaaleheena ugu dambeeya oo ah tusaalaha saddexaad oo rajeynayo inaan ku sii fahmi doono mawduucan caawa ka hadlayno. tusaaleheena saddexaad wuxuu leeyahay sidoo kale find the circumference raadi wareega and the area iyo bedka of a circle. circle-kan la siiyey circle-kan waxaana la siiyey waa inaad fiiriso circle-kan maxaa la siiyey ma diameter baa la siiyey ma waxaa la siiyey radius. waxaa lagu siiyey radius. waxaan soo raadinaa circumference-ga ugu horeyna marka hore. haye circumference-gu marka muxuu leeyahay circumference-ga waxaa lagu helaa pi lagu dhuftay diameter. waa inaad mar walba saa u xasuusan tahay circumference-gu marka waxaa lagu helaa pi waa imisa waxaan ognahay inay tahay pi 3.14 oo lagu dhuftay diameter. haye diameter sayaan kusoo heli karnaa waxaan haysanaa radius waxaan ognahay diameterku halkaasaan ku qoranaa diameterka in lagu helo radius lagu dhuftay 2. hadda anaga circle-keenu waxaan haysanaa 6 mitir oo radius ah marka diameter wuxuu la mid yahay 6 oo lagu dhuftay 2. marka diameterku wuxuu la mid yahay 6 lagu dhufo waa 12. diameterku wuxuu la mid yahay 12. sidaas ayaan diameter ku saarnay. haddii aan diameterka aan soo heli lahayn xisaabteena ma shaqeynayso ma soconayso. marka saas ayaan ku saarnay diameterkii 6daas mitir waa radius diameterkana waxaa lagu helaa radiuska oo lagu dhuftay 2. marka 6dii ayaan waxaan ku dhufanay 2 waxaa noo soo baxday 12 oo ah diameterkii. saas ayaan diameter ku saarnay. marka circumference wuxuu la mid yahay 3.14 lagu dhuftay 12. calculator-keena ayaan ku xisaabsanaynaa 3.14 oo lagu dhuftay 12 waxay la mid tahay 37.68 37.68 mitir. halkaasna waxaan ku soo helnay circumference-gii goobadii tusaalaha saddexaad. waxaan u gudbaynaa bedka area-ga ayaan u gudbaynaa. area of circle baan dhahaynaa marka area of circle waxaa lagu helaa pi lagu dhuftay radius square. haye waa qaacidadii waa inaad qaacidadan raacdaa haddii kale waxba iskuma ka hagaagayaan. waaye area of circle waxay la mid tahay pi waa imisa pi waxaan ognahay inay la mid tahay 3.14 oo lagu dhuftay radius square. maxaan haysanaa anaga radius ayaan haysanaa radiuskeena ayaan ka dhigaynaa square. waaye area of circle marka waxay la mid tahay 3.14 oo lagu dhuftay 6 laba jibaaran 6 laba jibaaran waxaan ognahay inay la mid tahay 6 lagu dhuftay 6 waa 6 laba jeer isku dhacday. maxay noqotay marka 6 lagu dhuftay 6 waa 36. markaasaan dhahaynaa 36 aan soo xisaabinay moogta 36 baan soo helnay. markaasaan waxaan ku dhufanaynaa 3.14 lagu dhuftay 36 3.14 sugaada 3.14 lagu dhuftay 36 waxay la mid tahay 113 113.04 mitir square. halkaasna waxaan kusoo gabagabeynay tusaaleheenii saddexaad. waxaan rajeynayaa
videogan gaaban inuu ku anfacay mawduucan caawa ka hadlayno intii aan ku kulmi doono videogan video la mid ah waxaa idiin dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu